كلنا وناكسن دولتها باكستان هندي أو لبا دولتود أو هب نوكليير هستا waxay qarku u saarayeen inay dagaalamaan madaaficdii ugu horeysay iyo dagaalkii ugu horeeyay ayaa dhaxmaray waxa la soo warinayay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac waxaan kula wadaagayaa labadaas dowladood qasaaraha maanta oo kaliya ama saacadii oo kaliya la soo dhaafay gaaray oo duqeymihii iyo dagaaladii dhaxmaray ah dad nagu cusubtaan ugu soo bir muuqaalkan si jar gari aad u maasanta dagaal socday muddo dhowr saacadood ayaa waxa uu dhaxmaray dowladaha Hindiya iyo Pakistan oo laba dowladood oo daris ah oo haysta hubka wax kumaada ee nuclear laakiin wali ma adeegsanin hubkaas wararku waxay tilmaamayaan in markii hore madaafiic gudaha waddanka Pakistan lagu tooray oo Hindiya ay toortay kadibna ay ka jawaabtay Pakistan iyadoo qaaday dagaal dhulka ah iyo soo kale mid weerar cirka ah qasaare kala duwan oo dhimasho dhaawac ah ayaa soo gaaray dadka shacabka ah ee labada muwaadiniin ama labada dowladood ku kala sugnaa gudahooda Pakistan dhankeedu waxay sheegtay in ugu yaraan 30 qof ay dhinteen oo caruur iyo dumar ah Hindiya waxay sheegtay in ugu yaraan 10 qof ay dhinteen ayadana xukuumad dad shacab ay ahaayeen Hindiya waxay leedahay waxaan duqeynaa goob ay ku sugnaayeen koox falaaga ah oo halis ku ah amniga qarankeena Pakistan laakiin waxay leedahay dad shacab ah guri ay deganaayeen oo masaajidii ay ku jiraan ayaa soo kala la duqeeyay weerarkaasi Pakistan waxay uga jawaabtay inay ayadana ay beegsato diyaaradaha casriga ah ee dowladda Hindiya dagaalka oo ay Hindiya ku hormartay kadibna Pakistan oo ka jawaabaysa waxay soo riday ilaa 5 diyaaradood oo laba kamid ah yihiin kuwa qaaliga ah ee loo yaqaan jiilka 4.5ka oo Francisco lagu farsameeyay oo midiiba ay ku kacayso lacag ka badan 288 milyan sidoo kale waxay soo riday diyaarada kale oo iyagana lacag malaayiin dollar ku kacayso oo lagu farsameeyay wadamada ay ka mid yihiin Ruushka iyo wadamo kale intood oo drone wadarta waa 5 diyaaradood shantaas diyaaradoodna lacagta wadartooda ku kacayso waxa lagu sheegay inay gaarayso 958 milyan oo dollar waxa weeye qasaare ugu cuslaa oo dhanka maaliyadda ah ayaa soo gaaray Hindiya diyaaradaha gudaheeda ayay ku dhaceen waxaana duqeeyo oo riday Pakistan soo kale waxa jira qasaare kale oo dhimasho dhaawac ah oo labada dhinac soo kala gaaro ciidankooda ma aysan sheegin faahfaahin dheeraad ah lagama bixin wararku waxay tilmaamayaan in xiisadii weli taagan tahay waqti kastana la filan karo dagaalo sidoo kalena mar kasta ay keeni karto qasaare inta ka bato maadaama diyaaradii la soo riday askar ama pilotyo oo Hindi ah ay ku jireen ayagina ay dhinteen soo kalena dagaalka dhulka ah qasaare uu geystay wariga labada dowladood way haysteen gobolka Kashmir liidaado xuduud isku haysteen laakiin hadda lama oga waxa sababay duqeynta Hindiya ay ka fulisay gudaha Pakistan dowlado badan ayaa ka hadlay oo cambaareeyay oo Hindiya eedeeyay qaar kale intoodna xiriir kala duwan ayaa la sameeyay labada dhinac Hindiya waxay la xiriirtay Sacuudi Carabiya waxay la xiriirtay Mareykanka waxay la xiriirtay UK waxay la xiriirtay Faransiiska iyo Ruushka dhammaan waxay uga warbixisay weerarkaas iyadoo sheegtay inuu ahaa weerar jilcan oo aysan ugu talagelin wax sii socda waxay kaloo sheegtay inuu ahaa mid ugu talagashay amniga dalkeeda iyo muwaadiniinteeda ayay Hindiya ku sheegtay si la mid Hindiya waxay sheegtay inay diyaar u tahay nabad iyo deganaansho laakiin wixii amniga qarankeeda halis ku ah ay difaaca doonto Pakistan ilaa hadda lama soo warinin war xaggeeda ku saabsan oo tarjumaya ama muujinaya in dowlado kale ay xiriir la sameysay laakiin wasiirka difaaca Pakistan iyo afayeenka ciidanka militariga waddanka Pakistan oo hadlay labadoodu waxay sheegeen in weerarkii dhacay ay ka jawaabeen isla markaana ay soo rideen ilaa 5 diyaaradood soo kalena weerar dhulka ah ay qaadeen waxay kaloo sheegeen inay iska difaaceen Hindiya oo ku soo gardarootay iyo in weerarkaasi oo qasaarada shacab oo ka soo gaaray oo goobada shacab ay ku sugnaayeen Hindidu ay bartilmaameedsadeen wasiirka difaaca waddanka Pakistan wuxuu sheegay inuu sii wadi doono dagaalkan haddii aysan Hindiya ka waantoobin waxa uu ku sheegay daadaansi iyo deganaanshaha gobolka inay diidanta walaba dowladood dirisa weligood way dagaalami jireen Kashmir isku haysteen hubka wax kumaada ee nuclear-ka ay haystaan waxay ku yaalaan Asia waxaana la ogeyn ilaa inta ay sii jiri doonto xiisadan laakiin durba walaac xoog leh ayaa laga muujiyay sida madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo Hindiya la xiriiray wuxuu sheegay in Hindiya ay qaaday tallaabo cawaaqib xun u ka dhalan karo Trump wuxuu yiri Hindiya tallaabooyinka ay qaaday waxay halis ku tahay xasaradaha waa deganaanshaha gobolka sidoo kale waxay halis ku tahay deganaanshaha dunida waxay dhibaato ku tahay ammaanka ayuu yiri wuxuu ugu baaqay Hindiya inay joojiso waxaan uu ku sheegay daandaansiga iyo inay joojiso dagaal Pakistan dhankeeda waxay sheegtay inaysan u aabayeeli doonin wixii uga yimaada dhanka iyo Hindiya cudurka ku soo kordha
Pakistan iyo Hindi waxay kugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyada dambe hadii Allah uu doono hadaan aragtana la wadaag aad maasanta markana waxaan eegaynaa wararka Soomaaliya maanta magaalada Muqdisho waxaa ka furmaya xisbigii ugu weynaa waxaana ka qaybgalaya madax kala duwan oo ah kuwa hadda xilka ka haya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ku yaala madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goobjoog noqon doona sida ay wararku sheegayaan haddii uusan goobjoog noqonina waxa uu xubin ka ahaan doona sare waliba murashax ah hogaamiyana ah xisbiga lagu dhawaaqi doono oo lagu magacaabo cadaaladda iyo wadajirka sidoo kale xisbigaasi waxaa qayb ka ah sida wararkeen hore ugu sheegnay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa kaloo qayb ka noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha saddex maamul goboleed oo kala ah Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle waxay wararku tilmaamaan ayaga inay goobjoog noqon doonaan wararka kale waxay kaloo warinayaan in sidoo kale oo xisbigaasi goobjoog ka noqon doono xubinna oo ka yahay hogaamiyaha si khaatuma ninka lagu magacaabo Firdhiye iyo mas'uuliyiin kale ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad u diidan ilaa waqtigan waa una rabaa xisbiga laakiin shuruudo ayaa jira oo saacadii ugu dambeeyay ee maanta iyo xalaba oo soo bandhigay shuruudu waxa weeyaan in la siiyo gudoomiyaha xisbiga isaga ama beeshiis ama wuxuu kale ku talinayaa in la siiyo xogeyaha xisbiga si gaar ah xogeyaha xisbiga ayuu raadinaya in isaga loo magacaabo ama uu xubintaas helo ayuu rabaa ama gudoomiyaha xisbiga waxay wararku tilmaamayaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisna inay gudoomiyaha xisbiga la rabaan Ra'iisul Wasaaraha talada haya Xamse Cabdi Barre xogeyaha xisbigana ay la rabaan ninka hadda ku fadhiya oo Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ujeedada oo Laftagar u raadinaya labadaas jago waa hal ujeedo ah inuu joogo meesha wax lagu karkarinayo go'aanada xisbiga lagu gaarayo si kursigiisa uu ilaashado oo Koonfur Galbeed ah si guud sababta xisbigan loo asaasayna waxa weeye in ay madaxdaasi maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe wadajir si ahaadaan mid kastana kan kale oo ka shaqeeyo sidii uu jagada ama kursiga hadda hayo ugu sii fadhin lahaa ujeedooyinkaas ugu waaweyn waxaana weeyaan waxa ugu weyn maanta ama warka ugu weyn maanta magaalada Muqdisho laga filayo laakiin haddii xisbigan ay ku dhawaaqaan ay ka soo wada muuqdaan mucaaradka halkaas waxa ugu jirta fursad fiican taasi oo ah in madaxdii dalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe ay dhamaantood noqon doonaan hal xisbi taasoo keeni doonto in beesha caalamka iyo Soomaalidu ay fahmaan in hal xisbi go'aan ka gaari karin mustaqbalka Soomaaliya ee loo baahan doono dhinacyo kale oo la jaangooya mustaqbalka dalka si danahooda oo kaliya aysan wax walba u ekayn wixii hadda ka dambeeyo 15 bisha May oo 3 sano ay u dhamaan doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud afartiisa sanana ay u bilaaban doonto dalka wuxuu gali doonaa xaalad crisis ah magaalada Muqdisho waxaa isugu tagi doona dhammaan xubnaha mucaaradka ah sida madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Axmed oo hadda jooga iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sugayo iyo xubnaha kale ee mucaaradka sida Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo mas'uuliyiin kale oo qaarkood hadda ay joogaan qaar kalena ay ka maqan yihiin oo ka mid yahay Cabdi Faarax Shaqtoon Saacid ra'iisul hore ee dalka oo murashax madaxweyne inuu yahay ku dhawaaqay maalin Muqdisho ku sugnaa haddana wadanka dibadiisa u laabtay wararkaas magaalada Muqdisho ka cusub wixii warar ku soo kordhay sheekooyina waxay ku soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyada dambe insha Allah xisbigan iyo maanta marka lagu dhawaaqana waan arki doonaa natiijada ka soo baxda inta xubnooda ka soo muuqato iyo inta ka harta tareenka oo hadda wali la isku haysto xilooyinka ama jagooyinka ugu muhiimsan oo si gaar ah waliba tabashooyin u qabaan reer Koonfur Galbeed oo xal mar ay ku sugteen inay ka baxaan xisbigaas Laftagareen shuruudaha hor yaala ama shuruudo hor dhigaya Xasan Sheekh wuxuu rabaa shuruudaas inuu qaato shuruud la'aan si uusan Laftagareen uga degin tareenkiisa dhinacyada kale toodna waa aamusan wax shuruudaha ma qabaan waxay ku qanacsan yihiin xisbi ka mid noqdaan iyo inay sii joogaan jagooyinkooda laakiin ugu dambeyntii waan eegaynaa maanta iyo waxa ay natiijada ku soo biisho hadii Allah uu doono aad ma santa aragtidaada xisbigan wuxuu ka bedeli doonaa xaalad siyaasadeed ee Soomaaliya ma loo baahan doonaa dhinacyo kale oo siyaasadeed oo go'aanada masiiriga wax ka gaara maadaama hadda goorihii madasha wadatashiga qaran ee NCC la oran jiray hal xisbi noqdeen ayagoo markii horeba dhaliilo kala wajahayo ah in isku aragti yihiin isla Muqdisho inta aan ka bixin waxaa ka dhacay qaraxyo miinooyin ah oo dhulka la geliyay xiriir ciidan ama goobo bar control ah oo ciidamada ku sugnaayeen ayaa qaraxyada la geliyay dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda dhimasho lama soo warin laakiin dhaawacyo ayaa la soo wariyay wadajir iyo yaaqshid ayayna ka kala dhaceen aad ammaanku xishay inay hayeen miinooyin dhulka la geliyay waa markii ugu horeysay muddo bilowna kadib oo qaraxyada Muqdisho laga maqlayo dadka Muqdishona aad ayuu u saameeyay qaraxyadaas maadaama waayadaanba ay jawi nabdoon oo nabadgelyo ay ku jireen kaliya ay la daala dhacay madaafiicda la soo tuuro meel ka mid ah magaalada gudaheeda laakiin qaraxyada dhulka la geliyo kuwa tooska ah magaalada way ka nabdooneed sanadii la soo dhaaf hadda dhaawacyo jira
oo ciidanka dowladda soo gaaray oo meelo ay deganayeen qaraxaas la geliyay iyadana hadda waa dukantaa sida guud xaaladda magaalada wax warar kusoo kordha sheekooyinkeena dambe ayaa ku daawan doontaan insha allah. Hada waa maasantiin.